وبوقشدي لباد مدحوينها دولة goboleedka koonfur galbeed mudane Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen uu ku soo gaaro degmada go'doonsan ee waajid ee gobolka Boqol tan iyo intii xilka madaxweynaha koonfur galbeed loo doortay 2 sano iyo bar ka hor soo dhaweyn heerkeeda uu sareeyay ayaa loogu sameeyay garoonka diyaaradaha waajid iyo xarunta hanuunista magaalada madaxda maamulka degmada shacabka iyo wafdi hordhac u ahaa madaxweynaha oo dhawaanahan degmada ku sugnaa ayaa ka qayb galay gudaha garoonka cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga dalka ayaa salan sharaf uu kaga qaatay guuta sagaalad inta lihinaad ururka la boolisinad ka soo dhawaw idinka xoogga dalka Soomaaliyeed soo dhaweyn kadib madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed iyo wafdigiisa ayaa kumanaan shacabka waajida kula hadlay goob loo diyaariyay gudoomiyaha degmada waajid Maxamed Macalin Yuusuf ayaa ka hadlay booqashada madaxweynaha dad eedan dawlad jeelo way baasan lana gacan furma ka dhawaada wal alla walaagi isigniin shantan oo khayr baa oo deegaankan wadan madaxweynaha ka horeeyta hadhawaayana gacan furma ka dhawaayana insha Allah way barajeeyana oo Ilaahay er walaay nin wadan wanaag waa baanin hormaray aragnay indhoogan waba ka aragnay run ahaantii degmada weejidgeeka walaalaha gadeji iyo gaadiid iyo inshaqada dawladnimada iyo walkasta muujiyaasa walkasta wanaag ah tanta ma ka koob korna dabcan ururada bulshada iyo afshookinka sheega uuna ka sheegaan oo Ilaahay er gudoomiyaha gobolka Boqol Sheene Macalin Nuurow iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo dawladaha hoose Maxamed Abuukar Cabdi oo wafdiga madaxweynaha kamid ahaa ayaa iyagana ka hadlay degmada waajid maamul dhisitaankeedii iyo dadaaladii lagu bixiyay dareemo kortaana runtii reer waajid wali macnaha madaxweyne kiin sheegan adiin ogdaawna macnaha tokiinka sheegana reer waajid waa dadka koonfur galbeed an ka hadda adoonka macnaha ka dhabar adeeg waay lamadii 2014 ilaa ay hatwal gaadiidaha gali male dadkan oo baad aragto dhawrtiyo iyo inay dadnimadii arago ay macnaha way waa dad iska talay waay madaxweyne farxad weyn aniga taqiiqdi kooyowka iyo booqashada booqati degmada waajid oo hayna markin ka horeeytii may taariikhi sumcad iyo horumar badan ka sameeyay inay aad si dhow la socoto shacabka reer koonfur galbeed degmooyinka iyo meelo kasto iyo ku sugan yihiin idaruuf kasto iyo ku sugan inay aad may leedahay la qaybsata mudane madaxweyne iyadan ka maanana waan iyadan ka mahsanta shacabka reer waajid horey meen ku ballan qaadnay ka wasaaradda arrimaha gudaha hadii ogolayaasha dawladda dhisdaan iyo isdooradaan ani madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed oo insheenana madaxweynaha waa ku geek madaxweynaha koonfur galbeed Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa sheegay in booqashadiisii ugu horeysay degmada uu ku soo gaaro shacabka uu ka ballan qaaday in maamulka loo dhan yahay shacabkana doorteen laga hirgelinayo tii oo dhacday booqashadiisa labaad uu ku soo gaarayna uu ka qayb galayo calaamasaarka maamulka shacabku ay doorteen ee degmada waajid ka jira safarkii koreeyo waajidkooy mahayna safar kale ana waajidkooy ballani wali ka ballanay maamulka waajid in goladeegan waajid leey la suubi dadka shacabka waajidna ha isku dooradaan goladeegan geeka waran koynay ballantiyeedaha tiafuli ilaahay suurta galiyay maamulka koonfur galbeed suurta galiyay iyo wasiiradii madaxweynaha dawlad goboleedka koonfur galbeed Abdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen ayaa dhanka kale ballan qaaday in wadooyinka si degdeg ah loo furi doono booqashada saddexaad oo halkan uu ka imaan doonana degmada oo wadooyinkeeda furan uu iman doono ilaahay idan sheey wali rajeeyana sidii safarkii hore aan ballan qaaday inii la aragi doono hoo ilaahay jidatay oo furmaan weejid iyo baydhabo isku furanta weejid iyo xudur isku furanta qorshaha uu horeeyo qaban doonana kaasana gal doona insha Allah Muxuddin Xusni Universal TV waajid Boqol